هل يجودي فيه شرد قن كذا ودك تدقتشي وانا قودوريو كيتي قدلان دولي دوكي ساوهيغني إنو عدو صدعيو ديباتدا ديديو xisbiga kulmiye deegaankan wajaale waxyaalo badan ayuu ka fuliyay waxa kamida wax qabad aad u ballaaran oo ay kamid yihiin wadada wayn ee 18 kilomitir ee ka soo bilaabanta deegaanka kalabayd ilaa wajaale waxa kamida iyaduna biyaha kamida waxa kamida isbitaal in loo dhisay deegaankan tag wajaale waxa kaloo kamida immigrationkii tag wajaale oo la casriyeeyay oo 3 dabaqo la dhisay runtii deegaanka tag wajaale xukuumadda kulmiye waxay ugu tala gashay in uu noqdo dry port ama waa dekada qalalan waxa aan u rajaynaynaa haddii aan la yiraahdo deegaankan tuurcanood in loo dhisi doono haddii la haydmo iskuulo goobo caafimaad ayaa ay ku rajayn yahay insha Allah xisbiga kulmiye inuu ka fuliyo deegaamada dhammaan iyo biyo haddii la yiraahdo waxa kale oo aanu xukuumadda kulmiye aynu ka rajaynaynaa inay noo dhisto wadada ka timaada wajaale ilaa geed ballaar tagaysa inay noo dhisaan haddii la yiraahdo haddaanu nahay qurba joogta gobolka amba degmadan waxaan ugu ognahay codkiina yaad siinaysaan codkiina maalinta doorashada 13 bisha yaad u codeynaysaa 13 bisha maalinta waxaan iga rajaynaynaa dhammaan nin walba kaarkiisii asagoo sita goobaha laga codeynayo inuu istaago cadceedu waana indhibin haraadku waanu indhibin maanta waxaan doonaynaa ninka mujaahidka aanu garanayno ee wax qabadkiisu soo socdo ee dawladdan maanta joogta ay ka sii jaan qaadayo wixii dambe soo socda inaan u codeyno oo farteena aanu waxaan idinku mahadnaqayaa soo dhaweynta ballaaran ee aad noo samayseen aad baad ugu mahadsantihiin annagu waxaan u nimid halkan inaannu idin muujinno taageerada aynu u hayno xisbigeenna kulmiye iyo murashax muuse biixi cabdi markaan intaa ka gudbo doorashadu ma aha isku soo urur muhiimadda loo imanaya waxa weeye maalinta codayntuna waxay u baahan tahay inaynu farteenna ku codayno aynu ku hubsanno kaarhka codaynta taasi waxay u baahan tahay inaad garataan xisbiga calaamadda uu leeyahay inaad la eegataan halka laga codaynayo haddii isku soo ururkeennaasi uu malaayiin yahay oo uu hadhow codayntu inaga khaldanto waxba tari mayso markaa waxaan idinku dardaarayaa inaad la beegsataan codaynta maalintaa 13 bisha xisbiga kulmiye calaamadda uu leeyahay كان يكون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام كنتي إنا كلمية وهيلنتهين أوساكا دبادقي هالكا كبيرودين إلى أي مكتاجنتي وأركنا تاجرياش كلمية نتي وأوجنا هي لكن واحد الكرة دردار منا مالنتا عد كنا عيه 13 كبشة إنا وحي بيله كلا اللي دهين تاكتكتان عد كفردان وايد دبادقي يوسف صباح. إسلام مركنا قدوميها قرب كداليرا gobolka gabilay ee beesha tuurcanood waxaan aad iyo aad u salaamayaa una soo dhaweynayaa waqtiga qiimaha badan ee inoo yimid oo aan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaa kaloo aad iyo aad u salaamayaa dadka sharafta iyo qiimaha male ee saaka halkan iskugu soo baxay ilaa iyo haddana taagan dulqaadka iyo adeegana muujiyey tusayna taageerada iyo xisbiga ahmiyadda ay u hayaan waxaanu leenahay waad arkaysaa reer tuurcanood saaka 9 subaxnimo ilaa 8 subaxnimo ay halka soo istaageen waxaana u soo istaageen inay muujiyaan taageerada xisbiga oo hayaan